Colaadda ka socota gobolka Tigray ee dhanka waqooyi ee dalka Itoobiya ayaa yeelanaysa wajiyo kala duwan oo saameyn oo dalalka dariska ah. Jamhadda TPLF ee ka ismaamulka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya dagaalka kula jirta dowladda federaalka Itoobiya ayaa habeenkii xalay duqeyn ka geystay goobo muhiim oo ku yaala dalka Eritrea. Madaxweynaha maamulka Tigray ayaa sheegay xalay fiidkii hore ay beegsan doonaan goobo muhiim oo cadowgu ku sugan yahay, iyadoona gudaha dalka Itoobiya markaas loo qaatay inuu ula jeedo hadalka, balse sagaalkii fiidnimo ee xalay ayaa gantaalada ritada dheer ay haystaan jamhadda TPLF ee Tigray waxay la beegsadeen duqeyn goobo muhiim oo ku yaala caasimadda dalka Eritrea ee Asmara. garoonka diyaaradaha, wasaaradda warfaafinta iyo weliba saldhig militari oo ku yaala duleedka Asmara ayaa lala beegsaday gantaalada ritada dheer ee weli gacanta ku sii hayaan jamhadda TPLF ee ismaamulka Tigray. dalka Eritrea oo dal xulxidhan oo kaliya taliska taliyo isla markaana loo ogolaan xorriyadda saxaafadda ayaa kooxaha saxafiyiinta ee ka agdhow isla markaana taageera maamulka dalkaasi gacanta ku haya ayaa sheegay xarumaha la beegsaday inayna ku jirin xarunta wasaaradda warfaafinta balse ay tahay aag u dhow oo dad shacab degan yihiin. dowladda Eritrea kama jawaabin, inkastoo warar baraha bulshada lagu faafiyay ay sheegayaan in diyaarada nooca bilaaduuliyaha oo laga leeyahay dalka Eritrea ay beegsatay habeenkii xalay geligii dambe saldhig ay leeyihiin ciidamada TPLF ee Tigray. colaadda ka socota gobolka Tigray ee dhanka waqooyi ee dalka Itoobiya ayaa yeelanaysa maalmihii ugu dambeeyay habeenadii ugu dambeysay wajiyo kala duwan oo saameyn, iyadoona Tigray ay waqtigan ka geysanayaan qalalaasi ammaan darro iyo duqeymo meelo ka baxsan gobolka lagu dagaalamayo ee dhanka waqooyi. habeen hore ayay markii qaraxyo laga fuliyay laba saldhig oo ciidan oo ku yaala ismaamulka Amxaarada gaar ahaan Baxradaar iyo Gondar laga fuliyay qaraxyada kadib ayaa rag hubaysani waxay gudaha u galeen saldhigyadaasi, iyagoona halkaasi laga malqay dhawaqa rasaasta. intaa kadibna waxaana tegay leerka Baxradaar, iyadoona halkaasi gudaha magaalada ay ka bilaabmeen rasaasi. ma jiro weerarkaasi cid fulisay iyo cid dowladda Itoobiya ku eedeysay, balse waxay sheegeen inay tahay falalka ammaan darro ee ay Tigray ka dameeyaan ka dhacaya dalka Itoobiya gudihiisa. hore ayaa dowladdu u sheegtay in ismaamulka Tigray ay weerar ka geysan karaan magaalooyinka caasimadaha iyo waaweyn ee gudaha dalka Itoobiya, xilli dowladda federaalka ee Itoobiya laba jibaaris oo weerarka ay kula jirto hadda TPLF ee hubaysay ciidanka dagaalka kula jirta dhanka waqooyi ee gobolka Tigray. ammaanka guud ee dalka Itoobiya ayaa aad looga cabsi qabaa iyo weliba inay isku bedelaan xaaladahani dagaalo sukeeye, balse Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay in aan marnaba una ka cabsi qabin in dagaalka ka socda gobolka Tigray dhanka waqooyi uu horseedi karo colaado sukeeye oo ka dhaca dalka Itoobiya. madaxweynaha ismaamulka Tigray ayaa talaadadii la soo dhaafay ku eedeeyay dowladda Eritrea inay gudaha u soo gashay xuduudda Eritrea ay wadaagaan maamulka Tigray, balse taasi waxaa beeniyay wasiirka arrimaha dibadda Cismaan Saalax oo sheegay inaan ciidamo ay dheeriya ayna u dirin xuduudda Tigray ay la wadaagaan. balse waxaa jira safar uu ku marayo la taliyaha dhanka ammaanka ee Abiy Ahmed uu ku marayo dalalka dariska laha Itoobiya si Itoobiya ay uga dhaadhiciso dalalkaasi inaan marnaba naxariis iyo gurmad loo fidin ismaamulka Tigray iyo weliba madaxdooda, isla markaana xuduudaha ayna ka gudbin iyaga iyo shacabka iyo weliba madaxda Tigray. dalalka Soomaaliya, Eritrea, Kenya iyo Suudaan iyo Djibouti ayuu safaro kala duwan ku mari doonaa, isla markaana qaybo ka mid oo hadda ku sugan yahay la taliyaha dhanka ammaanka ee Dr. Abiy Ahmed. dhanka kale ciidamada sirdoonka ayaa la geliyay heegan iyo weliba sidoo kale feejignaan gaar ah, iyadoona gudaha dalka Itoobiya gaar ahaan caasimadda Addis Ababa iyo weliba ismaamulada laga wado waqtigan baaritaan ay wadaan ciidamada sida gaarka ay u tababaran oo kaashanaya kuwa laamaha sirdoonka. shalay ayaa la sheegay in ciidamada sirdoonka iyo weliba qaybta nabadgelyada ee dalka Itoobiya inay gacanta ku dhigeen 14 qof ay sheegeen inay isugu jireen Daacish iyo Al-Shabaab, kuwaas oo sheegeen inay doonayeen inay gudaha ka fuliyaan dalka Itoobiya gaar ahaan caasimadda Addis Ababa qaraxyo iyo weliba falal ammaan darro. dhanka kale warar saaka la faafiyay ayaa sheegaya in komishinka maamulka Diridhaba uu qabtay iyaguna dad ay sheegeen in ay soo galeen gudaha Itoobiya oo ku hubaysnaa baaskoolado, isla markaana xabsiga loo taxaabay. waxay soo tarasa shakiga ammaan darre ay qabaan shacabka gudaha Itoobiya ku dhaqan, marka laga reebo cabsida kuwa ku dhaqan dagaalka ka socda xuduudaha ay wadaagaan Amxaarada iyo Tigray iyo weliba gobolka dhanka waqooyi ee dalka Itoobiya. Eritrea
ayaan la ogeyn waxay kaga jawaabi doonto duqeyntan iyo weliba daandaasigan gadarrada ay xalay ku qaadeen jamhadda TPLF balse TPLF ayaa la sheegay inay degayaan qorshe siyaasadeed maadaama TPLF ay hogaaminayaan khabiiro muddo 27 sano gacanta ku soo hayay talada Itoobiya isla markaana qayb ka ah talada Geeska Afrika. rugcadayaasha dabadiisa ka hagaya siyaasadda TPLF ayaa la sheegay inay degayaan qorshayaal ay doonayaan inay ku weeraraan dalalka dariska iyo Itoobiya gudaheeda qaybo ka mid ah. lama oga TPLF meeshay ka heli doonaan gurmad balse waxaa la sheegayaa dowladda federaalka ee Itoobiya ayaa sheegtay inay jiraan dalal doonaya inay gurmad u fidiyaan iyadoona dowladdu ayna carbaabin isla markaana ay sheegin dalalka ay ka shakisan tahay inay siiyaan TPLF gurmad balse in dalka ugu weyn laga shakisan yahay dalka Masar oo xilligan guluf colaadeed kala dhaxeeyo dowladda Itoobiya kaas oo ku saleysan biyo xidheenka webiga Niil. colaadda Itoobiya si xumaana soo yeelanaysa wajiyo kala duwan ayaa hay'adaha xuquuqul insaanka waxay ku baaqayaan in la qaboojiyo colaadda isla markaana laga fogaado wax kastoo keenaya in xadgudub colaadeed ka dhaco deegaanadaasi. xilli Tigreega iyo dowladda Itoobiya isku eedeynaya mid walba uu ku eedeynayo ka kale inuu xasuuq ka geystay gobolada uu gacanta ku dhigay ama uu gacanta ku hayo. waxaa la sheegay boqolaal qof oo shacab oo iskugu jira xoolo dhaqato, beeraley iyo kuwa tuulooyinka dagaaladu ka socdaan ku noolba in loo geystay xasuuq siday sheegayaan hay'adaha xuquuqul insaanka. waxayna ka codsadeen dowladda in dib loogu fasaxo isgaarsiinta iyo weliba sidoo kale korontada iyo weliba khadka internetka si loo ogaado xaaladaha dhabta ee ka jira deegaanadaasi. hay-adaha xuquuqul insaanka iyo dowladaha waaweyn ee caalamka ayaa adeegsanaya aaladda loo yaqaano satellite si loo ogaado xaaladaha dhabta iyo weliba in wax ka jiraan xasuuqa dowladda iyo kooxaha hubaysan TPLF isku eedeynayaan. dadka inta badan falanqeeya arrimaha colaadaha ayaa ka digaya xaaladda Itoobiya iyadoona laga baqayo xaaladdu inay sii xumaato isla markaana ay saameyn ku yeelato dhaqaalaha iyo nabadgelyada guud ee dalka Itoobiya iyo weliba saameynta kale ay ku yeelan karaan darar dariska la ah Itoobiya. dad badan oo ka barakacay gobolka waqooyi ee Tigreegu ay gacanta ku hayaan xilligan dagaalku ka socdo inay u gudbaan dhanka xuduudda Suudaan balse dowladda Itoobiya ayaa ka codsatay Suudaan inayna u sii deyn xuduudeeda dadka ka barakacaya dhanka waqooyi ee dalka Itoobiya. Itoobiya ay doonayso inay codib jirto awoodda Tigreega ee muddada 27 sano jirtay. waxaa la aaminsan yahay inay Tigreegu haystaan gataalada ritada dheer oo ay wax ku waxyeelayn karaan dalalka dariska iyo gudaha Itoobiya. dowladda Itoobiya isku dayayso inay duqeymo ka geysato saldhigyada gobolka Tigreega maadaama waqtigan Tigreegu ay saaladooda military iyo ciidankooda iyo madaxdooda isku kala qaybiyeen goobo aan la ogeyn ayna ku dhumaanaysanayaan. xaaladda Itoobiya ka sii daraysa ayaa maalmaha soo socda waxaa laga baqsan yahay inay yeelato wajiyo kale oo ka duwan wajiyo ee xalay iyo habeen hore la arkayay in colaaddu ay ku sii siqayso.